Sheekada shanaad, wiilkii ballanqaadka. 10 sano kadib, markii Abraam iyo Saara ay yimaadeen Kanaan, welina aysan u joogin wax carruur ah, ayaa xaaskii Abraam ee Saara ku tiri isaga, inkastoo Ilaah aanu ii oggolaanin inaan helo ilmo, haddana aan aad u weynahay. Waatan Hagar oo ah gabar ii adeegta oo shaqaale ah, guurso iyada si ay ciyaal kuugu dhasho. Kadib, Abraam wuu guursaday Hagar. Hagarna waxay dhashay wiil. Wiilkiina wuxuu Abraam u bixiyey Ismaaciil. Laakiin markay Saara aragtay inay Hagar dhashay wiil, aad ayay uga maseertay. Markuu Ismaaciil gaaray da'da 13 jir, ayuu Ilaah la hadlay Abraam kuna yidhi, anigu waxaan ahay Ilaaha xaqa lagu caabudo. Waxaan adiga Abraam kula galay ballan. Kadib Abraam wejiga ayuu dhulka dhigay. Ilaah wuxuu ku yidhi mar labaad, waxaad noqon doontaa aabbaha ummado fara badan, waxaana adiga iyo faracaaga sii doonaa dhulka Kanaan. Aniguna waxaan weligay ahaan doonaa Ilaahooda, waana inaad guddaa ama xalaalaysaa wiil kaste oo ka dhasha qoyskaaga. Ilaah wuxuu ku yidhi Abraam, xaaskaaga waxay dhali doontaa wiil, wiilkana wuxuu noqon doonaa kii aan kuu ballanqaaday. Waxaadna magaciisa u bixisaa Isaaq, oo axdigayguna isaga ayuu la socon doonaa. Wuxuuna noqon doonaa ummad aad u fiican oo sarrayso. Sidoo kale Ismaaciilna waxaan ka dhigi doonaa ummad aad u fiican, waana tarmin doonaa. Laakiin axdigaygu wuxuu la jiri doonaa Isaaq. Kadib, Ilaah magacii Abraamna wuxuu ugu beddelay Ibraahim, oo micnaheedu yahay aabbaha faraca badan. Sidoo kale Ilaah wuxuu u beddelay magacii Saara, kuna magacaabay Saara, oo micnaheedu yahay boqorad. Maalintaa kadib, Ibraahim wuxuu bilaabay inuu gudo ama xalaaleeyo wixii rag ah ee gurigiisa joogay. Sanad kadibna, markii Ibraahim noqday 100 sano jir, Saarana tahay 90 jir, ayay dhashay wiilkii Ilaah u ballanqaaday. Waxayna u bixiyeen Isaaq siduu Ilaah ugu amray inay u baxshaan. Markii Isaaq ahaa wiil yar, Ilaah ayaa wuxuu tijaabiyey iimaankii Ibraahim kuna yidhi, wiilkaaga Isaaq kaxee oo soo gowrac wanqal ahaan xaggayga. Ibraahim wuu adeecay Ilaah, wuxuuna isku diyaariyey inuu wanqalo wiilkiisa. Markii Ibraahim iyo Isaaq aadeen meeshii lagu wanqalayay, ayuu Isaaq weydiiyey aabbihiis oo ku yidhi, aabbo, waynu helnay xaabadii wax lagu shidayaye, aaway neefkii la qalayay? Ibraahim wuxuu ugu jawaabay, Ilaah ayaa keenayo neefka lagu wanqalayo. Markay gaareen meeshii wanqalka, ayaa Ibraahim wuxuu indhaha ka xiray wiilkiisii Isaaq, kadibna dul jiifiyey meeshii lagu wanqali lahaa. Markuu mindidii kor u qaaday oo uu rabay inuu wiilkiisa gowraco, ayaa Ilaah ku yidhi, jooji oo wax ha ku samaynin wiilka. Hadda waxaan ogaaday inaad aniga iga cabsato oo wiilka keliya ee aad qabto aadan iga raacin, waayo amarkayga ayaad maqashay. Ibraahim meel u dhow ayuu ka arkay wan ku xayiran meel kayn ah. Ilaah ayaa u soo dejiyey wanka inuu gowraco halka uu ka gowraci lahaa wiilkiisa Isaaq. Ibraahim si farxadi ku jirta ayuu u wanqalay neefkii. Kadib, Ilaah wuxuu ku yidhi Ibraahim, waayo wax kasta aniga ayaad i siinaysaa, xitaa wiilkaaga. Waxaan kuu ballanqaaday nimco, faracaagu waxay ka badnaan doonaan xidigaha cirka. Maxaa yeelay waad i adeecday. Dadka adduunka oo dhan waxaa lagu barakayn doonaa qoyskaaga dartiis.